waxaa soo gaaray magaalada Kigali wadanka Rwanda wafdi hogaaminaya ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre si uu booqasho ugu yimid rasmi ah wadanka Rwanda wuxuu insha Allah la kulmi doonaa caawa casho shaqo u leeyahay ra'iisul wasaaraha wadanka Rwanda iyo qaar ka mid ah golaha wasaaradda haddii la yiraahdo Britain wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha wadanka Rwanda Paul Kagame oo ah sanadkan madaxa ururka midowga Afrika sanad madaxeedkeeda hay'adda jagadaas oo kala hadli doona kala xaajoon doona xiriirka labada wadan soo jireenka ah wuxuu kala hadli doonaa arrimo khuseeya midowga Afrika waxaa kaloo ku sugan halkan magaaladan Kigali xogayaha ururka midowga Afrika Musa Faki oo hadda koorna ra'iisul wasaaraha ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa haddana ay ku kulmi doonaan insha Allah magaalada Kigali marka ra'iisul wasaarahana wuxuu wadaa sidaad arkaysay dib u soo noqoshada dowladda Soomaaliya ee u soo kabanayso kaabayaasheedii wayna xagga diblomaasiyadda soo la kulma madaxda adduunka iyo madaxda gobolkaba oo naga dhaadhiciyana ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba meeshii hiigsanayso iyo halkay marayso iyo horumarka ay gaartay hadaba